kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawanaysan waa channelka Guulwada TV fadlan channelka da ku cusub tahay subscribe noo saar wixii fikradaada ee qaybta hoose ee comment-ga noogu reeb wararka caawa idin waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo sheegay inuu soo dhaweynayo bilaabashada doorashada golaha shacabka balse oo walaac xoogan ka muujiyay habka ay u bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka qoraal gaar ah oo soo saaray Shariif Sheekh Axmed waxa uu ku sheegay in doorashada ay kadib dhacday waqtigii dastuurka ahaa ee loogu talagalay muddo ku dhow sanad dardargelinta iyo in laga foojignaado dib u dhac ku yimaada mar kale waqtiga loo qabtay dhameystirkeeda waxaa dalka ka jira abaaro nabadgelyo xumo oo sudhac dhaqaale oo baahsan hubinta la'aan iyo walaac siyaasadeed oo keentay dib u dhac soo noqnoqotay ee doorashooyinka sida awgeed waxaa lagama maarmaan ah in loo turo bulshada Soomaaliyeed ee dhibaataysan in la qabto doorasho hufan oo heshiis lagu yahay waxa ay furo u tahay nabad iyo xasiloonida wadajirka dalka horumarka dhaqaalaha la tacaalida abaaraha aafeeyay wadanka ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed waxa walaac xilligan ka muujiyay sida ay u bilaabatay doorashada golaha shacabka isaga oo sheegay inay jiraan cabashooyin ku aadan hanaanka doorashada loo maamulayo ayna keeni karto inuu muran ka dhaco natiijada doorashada golaha shacabka haddaan la ilaalinin habraacyada lagu heshiiyay 17 September 2020 iyo 27 May 2021 haddaba waxaan soo jeedinaynaa golaha wadatashiga qaranka in xilligan tabashooyinka soo ifbaxaya ay wax ka qabtaan cabashada iyo walaaca laga muujiyay hanaanka loo maamulayo doorashada ugu dambeyn Shariif Sheekh Axmed oo ugu baaqay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka in ay dhaqan geliyaan habraacyadii iyo hanaanka lagu heshiiyay iyo doorashada golaha shacabka kana fogaadaan wax waliba oo keeni kara iyo musuqmaasuq taas oo dhaawici karta natiijada doorashada iyo geedidhiska dawladnimada dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Roble oo amar siiyay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo kulan la qaatay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro Ra'iisul Wasaaraha ayaa gudoomiye Cirro kala hadlay toosinta iyo hufnaanta doorashada golaha shacab ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xaqiijinta in aan cidna lagu xadgudbin gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa Ra'iisul Wasaaraha siiyay warbixin la xiriirta habka ay u socdaan doorashooyinka golaha shacabka isaga oo u cadeeyay in ay si hufan u qabanayaan doorashooyinka kulanka Ra'iisul Wasaare Roble iyo gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa ku soo beegmay xilli xubno u badan musharaxiinta madaxweynaha ay walaac ka muujiyeen sida ay ku socdaan doorashooyinka iyaga oo ku dhaliilay Ra'iisul Wasaaraha daawadayaal intaasina waxaa nooga eeg warka kala socoteen Guulwada TV inagana waa ku mahadsantihiin la socodkiina iyo la saaqaadkiina